السلام عليكم سودو داودي marka ugu horeysa qofkii aysan u degnayn application-ka KineMaster waxaad tagi doontaa Play Store-ka ama any web aad wax ku soo degsato oo ku jira mobilkaaga waxaad ku qoraysaa KineMaster waa kan ku soo muuqanaya aniga wuu degsan yahay oo waxa ugu qoran open balse adiga halka wax ku saaraya install open in order waxaan soo furnaynaa application-ka KineMaster update-kiisii ugu dambeeyay waana sidan waxaad ku dhufan doontaa markaad rabto inaad muuqaal editing aad ku samaysid new project oo halkan sare qaarkan soo furnaynaa okaadi halkan u jeedaan ay ku qoran tahay new project ayaad soo furanaysaa wuxuu ku soo saarayaa dhowr future oo kala duwan balse labada ugu muhiimsan ee la isticmaalaa waa labada kan future wax soo gelinood midkan ee hadda calaamadu saaran tahay oo ah midka YouTube-ka iyo midkan aan hadda saarayno oo ah midka istaasyada sida istaaska masterka sida istaaska waa yani WhatsApp-ka iyo meelaha sida ay kamid tahay TikTok-ta oo lagu talagalay in la geliyo muuqaalada loo duubo sida istaaga ah ee mobilka yani dhuuban kanna waa sida YouTube-ka oo kale ama Facebook oo kale marka aad muuqaal soo gelisid qaabka loogu talagalay in loogu duubo laguna editing gareeyo inuu ku dhufano qaabka YouTube-ka ama muuqaalada yani jiifka ah ee loogu duubo mobilkeena waxaad ku dhufanaysaa halkan ku qoran tahay create xogaa ingiriiskeedu xumaado haligu qaato ku dhufo halkaas wuxuu kugu soo saari doonaa sida tan maadaama aynu inagu dhahnay bilow marka horeba waxaynu baran doonaa application-kan KineMaster iyo goobaha wax laga soo geliyo sidaynu u jeedno wuxuu noo soo saaray sida tan iyo shaashad madow halkanna wax yaala ma jira halkan oo u jeedan waa ul yaro dheer halkan ma aadi doono halkan waxa ku jira meel yaro wareegsan oo ku qoran tahay media layer audio iyo recording waxaynu ku dhufan doonaa halka ay ku qoran tahay media waxaynu soo qaadan doonaa muuqaalka aynu u baahannahay markaa inaynu editing-ka ku samayno haddaba daawade muuqaalkii waynu soo qaadanay si aynu muuqaalkeena u jarjarno waa inaynu ogaano halka muuqaalka marka koowaad laga jarjaro marka koowaad waxaad taabanaysaa muuqaalka oo yaalla halka hoos yani tan u jeedaan waa shaashadii aynu wax ka daawanaynay muuqaalka qaabkay wax u dhacayaan kalarka cadaan nooga dhig halkan u jeedaan u naga muuqdo sawirka aynu ku dhufano play aynu ku dhufano play sida aad u jeedaan halkan sare waa halka aad ka daawanayso muuqaalka halkaas sare waa halka aad ka daawanayso muuqaalka halkan hoosena waa halka aad muuqaalka ka editing garaynayso oo haddaad wax ka jaraysidna aad ka jarayso haddaad wax ku daraysana aad ku daraysid socod wanaagsan haddaba si aynu muuqaalkeenan waxna uga jarno waxaynu samayn doonaa muuqaalka laftirkiisa oo halka hoose ah ayaad gacantaada ku taaban doontaa ama suulkaada ama fartaada haddaba waa ujeedaan marka aynu taabano muuqaalka hoose waxaa inoo soo bixi doonaa line kasoo muuqan doona
xagga gacanteena midigta ah oo ujeedaan haddaba laynkan midda ugu muhiimsan inuu u soconaa waa maqaska halka ay ku sawiran tahay oo ah halka muuqaalka laga jarayo ku dhufo maqaska laftirkiisa maqaska ku dhufo maqaska markaa ku dhufatid wuxuu kuu soo muujin doonaa 4 calaamadood oo ah 1 2 3 4 waxaan idin sheegi doonaa 4 calaamadood waxyaabaha ay naga caawinayaan iyo shaqooyinka ay noo qabanayaan haddaba 4 calaamadood aynu hal mar muuqaalkeena daarno waxaynu ka bilaabi doonaa sow maaha waxaynu ka jari doonaa waad ixaqiraysaa si aynu u jarno intaas waa inaynu marka hore la soconnaa halka ay taallo calaamadatan loo adeegsan doono in muuqaalka lagu jaro haddaba hal mar daawade indhahaaga fiiri qaybtan hoose ee muuqaalka ma ujeedaa calaamad yaroo guduudan oo samaynaysa daqiiqadaha muuqaalka la soconaysa calaamadaas idinta guduudan daawade saan filayo waad ifaantay waana ujeedaa haddaba calaamadaas waa calaamada ugu muhiimsan ee aynu adeegsan doono marka aynu jarayno muuqaalka haddaba calaamadaasu meesha ay dhex taagan tahay ayaa inoo ah halka aynu ka duulayno oo haddaba markaynu maqaska adeegsanayno aynu wixii calaamada ka xiga bidixda markaynu ku dhufanno tan koowaad oo aad trying to left oo aad jar wixii ka xiga bidixda ay yani dee ugu i doonaan waxa naga xiga bidixda ujeedaa haddaba sidoo kale calaamadaas meesha ay joogto haddaynu ku dhufanno trying to right oo ah tan labaad waxaa ugu i doonaa dhammaan waxa naga xiga midigta fiiri haddaba ku dhufo waa ujeedaan waxaa go-ay dhammaan wixii naga xigay midigta haddaba calaamadu meesha ay taagan tahay haddaynu taabanno split oo ah muuqaalka u kala qaybi labo yani muuqaalka kala go cadiidiba haddii lagu siiyo soo qaadato mindi ood ka goynayso dhexda oo kale ayay taasuna la mid tahay waa split waxaa ku dhufan doonaa tan saddexaad waa ujeedaan waxaa halkan ka soo muuqday calaamad siyaada ah oo ah plus waxaynu uga hadli doonaa muuqaaladeena soo socda muhiimadeenu maanta waa inaynu isla fahno qaabka muuqaalka loo jiro haddaba soo noqosho wanaagsan waxaa jira mid afraad calaamada guduudan ee hoose waa inaad mar walba indhahaaga aad ku hayso maqaska taabo midda afraad waa tii hadda oo kale muuqaalka ayaad u kala qaybinaysaa labo adigoo ka qaadanaya sawir muuqaalka dhexdiisa waa tan afraad ee ugu dambaysa aana ku muujiya calaamada cad okay aynu taabano wuu wareegayaa waa ujeedaan labadii muuqaal way kala go-een hal mar aynu muuqaalka daarno wuu istaagayaa saad ujeedo haddaba muuqaalku iskama istaagin ee halkan waxaa ku jira sawir lagu soo daray muuqaalka ayna ka mid tahay tusaalooyinka tan afraad saan filayo haddeer waad ka fahantay qaabka loo adeegsado maqaska iyo qaabka muuqaalka loo jarjaro